Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka hadlay tallaabooyinka dowladda Soomaaliya qaadaysa ee la xiriira awaamiirta dhanka maamulka hawada ee maalmihii la soo dhaafay ay soo saartay. Qoraal uu bartiisa Twitter-ka soo geliyay ayuu ku sheegay in Soomaaliya ay muddo 30 sano ah sugaysay inay gacanta ku dhigto maamulka hawadeeda. Waa xaalad murugo leh in dowladdu u isticmaasho maareynta hawada sidii hub siyaasadeed oo saameyn culus ku yeelan kara xasilloonida siyaasadeed iyo midnimada dalka, ayuu yiri Mudane Xasan Sheekh Maxamuud. Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa kula taliyay dowladda federaalka inay laba jeer ka fikirto kana laabato dariiqada hadda wax loo wado. Hadalkan oo ka soo baxay Xasan Sheekh ayaa ku socda awaamiirta dhanka duulimaadyada ee ay dowladdu ku soo rogtay diyaaradaha aada Kismaayo, iyadoo maanta la xanibay diyaarad Muqdisho ka qaadi lahayd madaxweynihii hore Sheekh Shariif oo ku jeeday Kismaayo si uu kaga qayb galo caleema saarka madaxweynaha Jubbaland oo lagu wado maalmaha soo socda inuu ka dhaco magaalada Kismaayo. Muna Cismaan Dhoore, telefishinka xisbiga UPD, magaalada Muqdisho.